همبليو واندين همبليين يا ما دام دبر عبد الرحمن روحي هنجرتي maanta sidayto naqaana meesha marayso runtii waxaan jeclahay dadka Soomaaliyeed waxaan jeclahay da'da yar ee soo baxday ee israacsan waxay isugu jireen arday dhameysatay heerka labaad waxbarashada ee loo yaqaan master degree iyo heerka koowaad waxbarashada baajka oo ka soo qalin jibiyay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. ururka midnimo oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoon-yahana ayaa maanta munaasabadan ugu qabtay ardaydan Soomaaliyeed ee qalin jibisay munaasabadan oo ah mid si heer sare loo soo agaasimay hoteelada ugu waaweyn magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. xafladan ka soo qayb galay aqoon-yahano Soomaaliyeed, mas'uuliyiin, odayaal, culimo u diin iyo jaaliyada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ee ku nool dalka Uganda. horeen waxaa madasha ka hadlay aqoon-yahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kampala. waxaan jeclahay dadka Soomaaliyeed waxaan jeclahay da'da yar ee soo baxday ee israacsan ee isgarab fadhida dhammaan ardada Soomaaliyeed waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo bareerahayga ardadan Soomaaliyeed ee caawa halkan isugu timid een kala soocnayn inaan ku bogaadiyo sida sharafta iyo qiimaha badan ay isu garab taagan yihiin sida sharafta badan ay isu garab taagan ardada Soomaaliyeed ee halkan isugu timiday oo la socdaan odayaashii maamooyinkii waxgaradkii ganacsatadii kana soo qayb galiyay xafladan ugu horeys aan leeyahay hambalyo waan idin hambalyeynaya maadaama aad dabar adeegteen oo aad soo gaarteen heerka maanta aad taagan tihiin idinka iyo waalidiintiina iyo macallimiintiina waan idin hambalyeynaya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo anoo ku hadlaaya magaca mas'uul Soomaaliyeed inaan ahay maadaama bahda waxtar barashada ka tirsanahay wadankan hadda aan joogno oo ardaydeena u ogolaaday in waxa maanta dhagahayga ku dhacayay oo wanaaga badan oo takhasusada kala duwan ah inuu fursad u siiyay oo ay ka soo qalan jibiyeen ayagana waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay Uganda shacab iyo dawlad waad bahsantihiin. dhinaca kale gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa ardayda bogaadiyay iyo jaaliyadii dhan midaysanaan aragno runtii waa wax aad noo dhiirigelinayo waxaan ognahay dalkeena maanta inuu yahay xaalad uu ku sugan yahay sidii uu ahaan jiray maanta meel daanta ayuu soo maraya step by step tilaabo ka soo fiicnaanaya Cabdi Raxmaan ruuxi ahaan jirtay maanta sidayto naqaana meesha marayso runtii waxaan leeyahay wax badan bay ka bedeli karaan waxaan ogahay dhamaantood in badan ay kamid ah la soo shaqeeyay waxa kamid ah qaybaan soo doortay gudoomiyaha mataqaana electoral commission gudiga doorashooyinka walaalkay Maxamed Cabdi Xafiid Faracde runtii waa nin aan aad u garanayo aqoontiisana aan si fiican u garanayo waxaan